kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walbaad naga daawanaysaan kusoo dhawaada xogihii ugu dambeeyey haddaba maxaa cusub boqolaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo shalayto kasoo gadooday soona baneeyey furimihii dagaalka ay kaga jireen ee ku yaalay gobolka shabeellada dhexe ayaa maanta soo dhoweyn lagu sameeyey deegaanka daa'if oo ka tirsan gobolka hiiraan boqolaalkan soo goostay ee gadoodsan ayaa ka gadooday dhacdadii argagaxa lahayd 6 askari ee ka tirsanay ciidanka xoogga Soomaaliyeed ee maleeshiyad beeleedka ay sida arxan darrada ugu dileen duleedka degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellada Dhexe haddaba ciidankan soo gadooday sida loo soo dhaweeyay iyo sidoo kale to halka ay hadda ku sugan yihiin ayaan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale to iyadana dul istaagi doonaa taliyaha ciidanka nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed Sambaloolshe iyo sidoo kale to taliyaha ciidanka lugta xoogga Soomaaliyeed Sahal Cabdullaahi ayaa soo gaadhay oo ilaa iyo xalay ku sugan deegaankan Shabeellada Dhexe waxa uu sidoo kale to taliyaashu ay ilaa iyo xalay ilaa iyo maanta ay howlgallo ay ka wadeen duleedka degmada Ceelbaraf oo dableydani lagu tuhunsan yahay in ay ku sugan yihiin degmada Ceelbaraf ayaa sidoo kale to laga qaxay oo la sawirada laga soo qaaday ay muujinayeen iyadoo uusan wax dadaba aysan dhex joogin oo halkaasi odayaal iyo caruur yar yar oo kaliya lagu dhex arkay dadka deegaanka ama odayaasha dhaqanka ee deegaankaasi ayaa amar lagu siiyay inay soo qabtaan oo ay laamaha amniga u soo gacan galiyaan gacan ku dhiiglayaashan iskugu jira rag iyo dumarka ee baangadaha iyo qoryaha la ordayay muuqaalada iska soo duubay iyagoo wiilasha Soomaaliyeed ee askartaas si arxan darro ah u leynayo sidoo kale to odayaasha dhaqanka ee beelaha xawaadle oo dhalinyaradan la laayay ay ka soo jeedeen ayaa soo saaray go'aano culus oo ka dhan ah talaabada ay kaga jawaabi doonaan falkii argagaxa lahaa ee wiilashooda loo geystay ama lagu dilay waan dul istaagi doonaa xaaladda guud ee gobolka Shabeellada Dhexe iyo sidoo kale to gobolka Hiiraan dhaqaaqyada ciidan iyo sidoo kale howlgallada dawladdu ay wado qorshayaasha ay qaateen iyo sidoo kale to kooxahan nabaddiidka argagixisada aan waxba dhaamin ee falkaasi argagaxa leh wiilasha Soomaaliyeed ku laayay iyo meelaha lagu tuhunsan yahay iyo xogihii ugu dambeeyay ee degmada Ceelbaraf iyo guud ahaan Hirshabeelle ayaan dul istaagi doonaa waxaan dhinaca kale to iyadana mid iyo labo aan ka taaban doonaa go'aanka dawladda federaalka Soomaaliyeed ay ka qaadatay kasi mid ahaanshaha ciidamada ATMIS ama ciidanka howlgalkan cusub ee midowga Afrika ciidamada Itoobiya ee sanadka cusub iyo hadalhayn weyn oo ka dhalatay Itoobiya oo wajigabax kala kulantay danaceedii ahaa in ay ciidamadeedu ka mid noqdaan ciidamada howlgalka midowga Afrika cusub ee sanadkan 2025 ee hadda maalmaha ugu soo aadan bilaabanaya ayaan iyadana dul istaagi doonaa haddii alayno soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidina nagu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay waxaan ogsoonayn in maalin ka hor wiilal 7 ah iyo waa 6 la isku hayo oo ciidanka xoogga Soomaaliyeed ka tirsanaa oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan oo ka soo jeeda beesha Xawaadle inay maleeshiyad beeleed ay ku qabteen duleedka degmada Ceelbaraf wiilashu maleeshiyad mayna hayn ciidan xoog Soomaaliyeed ka tirsan bay ahaayeen ciidan qaran bay ahaayeen fasax bay soo qaateen eheladooda iyo dadkooday u socdeen si nidaama ayay kaga soo baxeen furimahoodii iyo goobihii ay difaaca kaga jireen wiilashii noocaas ahaa maleeshiyad beeleed ka soo jeeda beesha Abgaal oo weliba Xasan Kuhayb madaxweynaha jamhuuriyadda Kuhayb ah ayaa wadada u galay wadada loo galay waa la qabtay gaarigii baa laga degay meel baa la geystay dib baa loo xiray diriiskoodii baa dib loogu xiray ayagu qoriyay wataan oo way la kor istaageen gabdhana midiye intay u dhiibeen ayay dhaheen galgaliya arba hadana video aqli xumada video ma hadana la duubaya bal adigu cadaawada inta leegtahay damir xumada waraway islaamnimadii waraway binaadanimadii waraway hawra xagay aaday waarinta la tacajibay way ruuxantay muuqaalka markaan daawaday waan argagaxay oo waan qaadan waayay adigay daawanayaan inaad qaadan weydo waa macquul oo waliba qalbigaadu u gilgishay dhacda argagax badan wardad waa istilaa Soomaalidu waa istishaa dagaal xabad qof maxaa weeyaan inta dagaal wada gasheen aad isku disheen waxba ma ahaba
intaad wiil ciidan soomaaliyeed oo kaarkiisi wataad soo qabato aad tiraahdo xawaadlaan dhisaynaa ree hebel baan dhisaynaa oo intaad gadaal u xidhato gadaal waa masaafur aduu ku dhex marayaa waa ciidan soomaaliyeed waa masaafur isagu waxba kama oga dagaalada iyo waxaa intaad gadaal u xidhato aad tirahdo haddana gabadh tooriyo war hadday xabad dhag 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 inta ka seensaa ku laylan waxbay ahaan layd gabdha intay tooriyo u dhiibeenba waxay dhahayaan gelgeliya arbaab fujuq qofkii nool fujuq kolba meel bay ka gelin fujuq waa dumar ya dumarka naftirkooda waxay noqdeen bahallo caadi ah bahallo caadi ay noqdeen dhacdadaas markaa dhacdo argagax badan oo dhinacyo badan taabatay oo hadalhayn weyn dhalisay bay run ahaantii horta noqotay beesha abgaal baa sameeyeen xasan beeshiisaa sameeyeen madaxweynaha soomaaliya reerkoodaa sameeyeen ilmo adeertiibaa sameeyeen xawaadlaa lagu sameeyey horta waa in dhacdadaas halkaas aan u tiirino oo sidaa aan ula soconno arrintaa markay dhacday ciidanka soomaaliyeed bay saameyn ku yeelatay boqolaal ka tirsan ciidanka soomaaliyeed oo weliba deegaanadii abgaal ay degahayeen difaac kaga jiray oo argagixisada ka dhicinaya shacabka abgaal inaan si fiican baasha u bayaamine ayaa soo baneeyey furmihii shalay waxay ilaa xalay soo yaasaanba deegaanka daayif oo ka tirsan gobolka hiiraan ayaa maanta geel loogu qalay oo lagu soo dhaweeyey oo hadda ay ku sugan yihiin dadka deegaanka gobolka hiiraan weliba gaar ahaan xawaadle go-aano culus bay soo saareen ilaa iyo habeen hore shirar baa socday odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwanba waxaa go-aan lagu gaadhay inaan waxa weeye laga sii aamusi doonin meeshana dowladi aysan jirin xawaadlana tallaabo ay ka midaysan yihiin ay qaadi doonaan ilaahay horta waxaan ka rajaynaynaa dhiig lagu gudayo waa faa'iido tari maxaye haddaanan iyagii gacanta geliyey waxa weye gacanta geystay aan la soo qabanine ilaahay horta waxaan ka rajaynaynaa in colaadaasi uu damiyo haddii aada xawaadla intay duulaan kuwo kale oon dhacdadaaba waxba ka warqabin oo abgaal ah ay gab iyagana kasoo siiyaan dee maxaa faa'iidaa maxaa la faa'iidey wax la faa'iidey ma jiro marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa horta inuu colaadaas uu damiyo muddo badan bay soo noqotay abgaal iyo xawaadle ay dhinacyo badan isku qabteen ilaahay horta waxaan ka rajaynaynaa ummadda soomaaliyeed inuu kala qaboojiyo ayaan allah ka baryaynaa xawaadle go-aan bay gaadheen tallaabaan qaadaynaa bay dheheen lama oga ma halkii baa lagu duuli ma ceelbaraf baa lagu duuli ma jawhar baa lagu duuli ma meel kalea lagu duuli lama garanayo xawaadle waxay dheheen annaga tallaabo lama arag baa layidhi lama maqal baa layidhi laba arag ah ayaan qaadaynaa bay dheheen odayaasheeda dhaqankana intaasay waxa weeye isla qaateen shirar baana socdo weli ay ku jiraan dhinacan dowladda federaalku tallaabooyin adag bay qaadeen shalay waxaa jawhar soo gaadhay taliyaha ciidanka lugta xoogga soomaaliyeed iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa halkaasi soo gaadhay iyo weliba saraakiil kale howlgalla ilaa iyo xalay ka socday oo la waday ilaa iyo haddana waa socdaay oo taliyaha ciidanka lugta iyo weliba nabad sugiddaba waxay xalay ku baryeen intay jawhar shirar ka qabteen bay ka duuleen xalay duleedka ceelbaraf bay ku dheelmadeen ilaa iyo haddana waxaa lai xaqiijiyey inay halkaa ku sugan yihiin waxay halkaa shirar kuleeyihiin odayaashii dhaqanka deegaanka ceelbaraf oo dhacdadan foosha xun ee argagaxale ay ka dhacday waxaa amar lagu siiyey odayaashu inay soo saaraan gacanku dhiglayaashaasi dhibaatada geystay hadday soo saari waayaan tallaabo ay iyagu qaadayaan oo cidday hadhow wax gaadhaanna aan loo qabsanayn inay qaadi doonaan ciidanku ay lagu fasixi doono duurkan waxay arkaanna madaxa ay ka toogan doonaan odayaashii way iska daba wareegeysanayaan hadda waa qaade iyo qariye sababtoo dableydan waxa raashinka siinaya waxa seexinaya waxa weeye daawada u geynaya waxa dhaawicinaya waxa xoolaha usoo ururinaya waa odayaasha dhalinyaradan iyagu cidna waxba siin mayso waxa wax siinaya waa odayaasha weye odayaashan wax siinaya markaay ma doonayaan in lasoo qabto waa wiilashoodii way qarinayaan midda labaad dhalinyaradan iska badaaba wiilasha naagahan midiyaha la ordaya ee ragga gelgelinaya magaaladay dhex joogaan tuulooyinkay dhex joogaan waa la yaqaanaa waa ina hebel lama soo qabanayo tallaaba marka la sugayaa ciidanka soomaaliyeed inay qaadaan howlgal xoogan baa socda degmada ceelbarafna waa laga qaxay ciidankuna way ku hareereysan yihiin ilaa aaggaasoo dhan baa howlgal ka socda mas-uuliyiintiina halkaabay ku sugan yihiin oo way ka go-an tahay sidii gacan loogu soo dhigi lahaa waynu eegi doonaa wixii kasoo kordho
muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa. run ahaantii dhacdo argagax badan ayay ahayd. dhinaca kale dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka jeedisay in Ethiopia aysan qayb ka noqonaynin howlgalka cusub ee midowga Afrika ee nabad ilaalinta Soomaaliya ee bilaaban doona 2025 bishan hadda inagu soo aadan ee hadda soo bilanaysa maalmaha yar ay ka dhiban yihiin. dowladda Soomaaliya mowqifkeeda ayay adkaysay. heshiiskii Ankara ka dhacay ee Ethiopia iyo Soomaaliya waxaa si weyn loo hadalhayay oo dadku bulshadu ay hadalhaysay in Ethiopia loogu ogolaaday in howlgalkaas ay qayb ka noqoto, balse waxaad moodaa in jalaafato siyaasadeed oo aad iyo aad u xanuun badan Ethiopia loo dhigay. Ethiopia naftarkeeda waxay isku diyaarinaysay in howlgalka loo ogolaan doono oo ciidankeedu ay kasii mid noqon doonaan, laakiin halkaas khiyaamo siyaasadeed baa horta dhabarka dhulka loogu dhiftay horta Ethiopia. Soomaaliya guul weyn bay arrintaa ka gaadhay. golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna qaranka ayay ku duugeen inaysan Ethiopia ka mid ahayn wadamadii horey ay Soomaaliya u gudbisay ay qayb ka noqon doonaan. marka jalaafato siyaasadeed ayaa horta halkaa ka soo gaadhay Ethiopia. xagga Ethiopia warka ka soo bixi doona lama oga, maadaama horey ay u tiri annaga kama bixayno gudaha Soomaaliya oo ciidankaanadu way joogayaan. ciidan 6,000 ku dhawaad lagu qiyaasana Soomaaliya ay ka joogaan, laakiin lama garanayo go'aanka ay qaadan doonaan. dowladda federaalku horey bay waxay u tiri Ethiopia waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga baxdo gudaha Soomaaliya oo gabi ahaanba ay ciidankeeda ku celiso dalkeeda. iyaguna horey bay u diidanayeen annaga ciidankaanadu kama baxayaan oo Soomaaliya ummadda Soomaaliyeed bay wax u hayaan. ilaa iyo dhowr iyo 10 saldhig oo ciidanka Ethiopia ay ku sugan yihiin ayaa waxaa la sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ciidanka 12,000 ee ATMIS inay bedeli doonaan oo ay buuxin doonaan goobahaas ama ATMIS ayna dhinaca UNISOM ee cusub magacii waa laga bedelay. si kastaba dowladda mowqifkaasi ay qaadatay ummadda Soomaaliyeed aad iyo aad bay u soo dhaweysay oo waxa weeye falcelinta ay ka sameeyeen ayaa noqotay mid lagu soo dhaweynayo mowqifkaas oo gabi ahaanba meesha looga saarayo ciidanka Ethiopia ee ku sugan gudaha dalka Soomaaliya. waynu eegi doonaa wixii ka soo kordhay muuqaaladeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa haddii